الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله إذا عشرة فربضان عن هراء سود فائدة سنة ستيبسكي عن عشرة وقادنين يبقى جرنا واسمع ستار أونلاين كونتاكت هاي جلس سحرية كرتا لبركة رموتي كان كلابه سمع ستار بديه هود.com إيميل كويس صدري كرتا فريمة وحياة وحان قادنا عشرة ديها لبكم لباتني كوكو بوكيس محاك سو كردي إذا عشرة هراء عنو سو قادني waxaan kaloo arkaynaa maanta waxaa isbedelka ku dhacayo iyo sida casharadii ardayda ku dalbadeen point of sale inaan imaano halkaan markaa itemskeeni iyaan soo bilaabanaa inventory activity-ga ugu dambeeyay new inventory haddii aan qaadanayno iyo activity hore haddii uu jiray reportkeeni baan fiirinaynaa marka reportkeeni inaan fiirino oo item listiga ahaa ayaan rabaa itemyo cusubna waan soo dhisaynaa kan idinka itemkiina bilowba kasoo bilaabaysaan kan waa item hore loo qoray oo company loo diyaariyay marka sidaa ku baranayno waa itemka saas ayuu u kala sareynayaa numbersna waa uu yeelan doonaa waana muhiim jiddan taas ardaydu waa inay fahmaan marka sidaas darteed casharkaana step step baa loo faa'iidaysan doonaa waana ka wada faa'iidaysan doontaan idinkoo hadba tilaabo hore usii qaadi doona marka okay marka waxaa sameynaynaa in aan sameyno item cusub haddii aan rabno waa noo fududahay new item sidii kuwii hore kale ayaan u sameynaynaa haddii aan rabno item inaan edit ku sameyno waa sameyn karnaa haddii item aan delete garaynayno iyo haddii aan multiple item aan sameynayno okay item haddaan inactive ka dhigayno asigana waa arki doonaa inactive waa ka dhigi karnaa item kale haddii aan kusoo daraynana waan arki karnaa iyadoo casharo fara halkaasaa lasii mariyaa marka inaan sameyno waxaa aada iyo aada nagu muhiimsan itemskian oo itemyadii buu ka bilaabanayaa iyo income account inaan u sameyno companygeeni kani wuxuu leeyahay income account oo haddii jaatarka aan dib ugu noqdo cashirkeenaani soogal quick books jaatarka baleeg homimo jaatarkiini bale dib u eegis ku sameeya jaatarka akoonkiini akoonada halka naturalka iyo kuwa kale ayaa kala arki doontaan income account meeqaan haysanaa bangiga waan garanay waa income inta bangi inoo samaysan waxaa noo samaysan qasnada guud waxaa kaloo noo samaysan oo income noo ah waxaa noo samaysan qasnada dukaanka noo samaysan qasnado badan baa noo samaysan oo income account noo ah maadaama ay jiraan taas oo kale aan rabno inaan sameyno idin sameyno waa inaad ka wada faa'iidaysataan sidaa ugu wada dhan tihiin charter of account-ka waxaa ka ogaanaysaan companygiina inta account uu leeyahay waxaa ka ogaan kartaan charter of account-ka charter of account walbana waxaa ka ogaanaysaan companygiini macluumaadkiisii iyo inta qasnad uu leeyahay inta expenses baxay qasnadaha ay ku jiraan haddii aad samayseen company weynaha uu yahay haddii inta receivable-ka ah iyo inta payable-ka ah kulli halkaas wada keenaya iyo liability-ga iyadoo casharo fara badan aan soo qaadanay capitalka guudna waynu tusin doonaa marka charter of account-ka waa halka laga maamulo company-ga halka laga maamulo company-ga inuu yahay maxaan ku ogaanaynaa soo gal jaatarkayga waa kan home aan idhaahdo qaybtan charter of account-ka inventory activities-ka item services-ka iyo check order-ka calendarka kulli wuxuu intaa la isku yiraahdaa intaa kuwa wuxuu isku yiraahdaa company bankiga wuxuu isku yiraahdaa deposit-ka iyo wuxuu isku yiraahdaa writing checks-ka iyo checking registry-ga intaas wuxuu isku yiraahdaa qaybta bankiga qaybtan sare waa qaybta fundraise-ka oo ahayd purchase order receive item interbill and iyo buy bill-ka iyo interbills-ka intaa waxaa la isku yiraahdaa vendors customers waa inta sales order-ka estimate creating invoice iyo accepting credit card hadduu jiro interdaily sales hadduu daily saleskeena iyo receive payment statement-ga intaa waxaa la isku yiraahdaa customers employee waa hadduu jiro employee laakiin Soomaaliya iyo wadankeena employee-da ma haystaan shuruucda employee-da ma yaalaan hadda ma dhisna marka sidaa darteed employee halkaan
ma badanaa lama isticmaalo oo xaq yeelan doona oo payroll yeelanayo. Employee-da waa shaqaalaha waa la iska shaqaaleysiiyaa, haddana haddii shaqada ay ka tagaan kuwa kale unbaa lagu bedelaa. Marka hay-ad xuquuq ama xuquuq shaqaale u doodeysaa ma jiro oo Soomaaliya. Employee halkaasaan uga baxay. Halkan company-ga qaybtan oo company ay ku qoran tahay markaad joogtid aad arkayso iconskan waxay ku tusin doonaan company-gaagii. Halkan bangiga waxay ku tusin doonaan waxay bangigaagii isla xiriiray. Halka kore vendorska inta isku xiran buu ku tusiyaa vendorska ku xiran. Halka dhexe customerskii wixii ku xirnaa. Halka hoosena waa employee. Okay, company-ga mar alla markaa soo dhistaan oo new company soo bilowdaan, isla markii waxaa sameynaysaan income account-kiisii qasnadihii iyo bangiyadii. Kadib ayaa lacag dhigi kartaan, kadib ayuu company-gii shaqadiisii halka ka bilaabaya. Qaybaha accountantiga halkan waa la fududeeyay marka software-kan loo sameeyay. QuickBooks baa isticmaali kartaan, waxaa kaloo isticmaali kartaan Paytree, waxaa kaloo isticmaali kartaan Cashbook. Marka inta badan kuwa la isticmaalo ayaan kusoo qaatay, kuwa kalena way jiraan. Software fara badan oo accounting loo isticmaalo ayaa jira, waana muhiim jiddan. Cashirkeeni koowaad waxaan kusoo qaadanay sida loo isticmaalo 21.0 oo ah 2021 software-ka soo baxay oo QuickBook ah. Okay, company-geeni ma accrual base baa mise cash base? Haddaan isweydiino number 1 performance company-geena aan dib u eegis ku sameyno waa ka company-geenana waa accrual base. Hadduu cash base yahayna badeecooyinka waa soo gadanaa waa sii gadnaa, wax walbana cash base bay noqon doonaan, waana la wada socon doonaa, waa arki doonaa report-keeni. Okay, company walba wuxuu leeyahay nidaam u gaar ah inuu accrual base noqdo sidaan oo kale ama inuu cash base noqdo. Badeecooyinka uu soo gato uu sii gado waa asalka company-ga meesha uu fadhiyo. Number 1 accrual base miyaa ku shaqeynaysaa mise badeecooyinka cash baa kusoo gadeen, cash baa kusii gadaysaa? Waa asal halkaasi. Company-yada way ku kala duwan yihiin, farqigaas ayay ku kala duwan yihiin. waayo company-ga inuu lacag xareeyo oo uu biilal xareeyo ayuu biilashii orderka markuu dalbayo lacagta raacaya. Kuwana waxay sameeyaan accrual base alaabtii badeecada markay u timaado kadib ay receive gareeyaan, ay qabtaan alaabtaas, kadib ay biilashii xareeyaan, kadib ay lacagta diraan. Markuu gaariga kuu soo istaago kadib ayaad lacagtii diraysaa. Orderka horeynayo markay badeecada timaado kadib, sida dukaamada yarka oo kale haddii ay ka adeegtaan shirkada ka adeegtaan, shirkadaha ay dalab u dirsanayaan, dalab marka la keeno kadib ay lacagta dirayaan. Kuwana ay gadaan, kuwana ayaga way soo gataan, way sii iibiyaan. Markaas waa waxa ay tahay inaad aragto company-gaagi performance-giisii. Performance-ga wuxuu ku tusin doonaa marka company-gaagi habka uu u shaqeeyo. Ma accrual base ba isu cash base? Performance company-gan si waajibaadkiisa u gudanayo, amaba QuickBooks sida wuxuu ku tusinayaa company-gaagi qaabka uu u shaqeynayo oo layout-ka uu ku shaqeynayo. Badanaa Soomaalida waxay iska samaystaan company-gooda accrual base kasoo qaataan, hadhowna taas ay isticmaalaan. Xisaabaadka xataa ma bil baa ku xirtaa, weekly miya, daily miya, mise waa week, mise waa month, bil miya ku xirtaa. Xisaabtaada waxaa ku xiraysaa by week, by day bay ku xiri doontaa xisaabtaada, taasna adiga ayay ku taalaa. Okay, xisaabteennii ama shaqadeennii ama cashirkeennii maanta wuxuu ka bilaabanayay kadib markii aan kasoo gudubnay ciladaha uu yeelan karaan soo sheegay iyo habka loogu duubo. Window-ga isticmaalayso uu quseynaya, oo sababta uu quseynaya waxay tahay Windows-kaaga update ma yahay mise ma aha. Kan ugu dambeeya waxaan ka hadlayaa QuickBook kan ugu dambeeya 2021 badanaa 32 bit ma qaato, 64 bit buu qaataa. ila soo halkaasna waa inaad markaa ku duubeyso aad ogaataa. halkaa marka company-gaygii haddii aan rabo company cusub inaan soo bilaabo, halkaa anigii baan ka bilaabaya company oo waxaan iska leeyahay Cleos company. markaas company soo dhisaya. company-ga dhisan waxaa loogu talagalay ardaydii hore oo ula socotay QuickBooks inay casharada halkan kala qabsadaan. kuwa cusubna company cusub casharadoodii way ku jiraa internet-ka, ka raadin kartaan. waxaa ku qori kartaan Google-ka baro QuickBook 2019 min bilow ilaa dhamaad buu idin tusin doonaa soo la sharaxay. kan waa kii update-ka ahaa, marka waxa isbedelay baan halkan ka raadin doonaa, iyo iyadoo casharadiina ay noo soconayaan isbedelka ku dhacayna waan arki doonaa.
iyadoo marka casharadeenii halkaas ay kasii bilaabanayaan ayaa waxaan rabaa inaan ogaado, waxaan rabaa kaliya inaan maanta aan ogaano, aan halkan ku ogaano cashirkan wuxuu quseynayaa sales orderkii, ama wuxuu quseynayaa every man oo ku shaqeeya QuickBooks buu quseeyaa. waayo erir hadduu ku qabsado xisaabtaadii ama hadduu kugu yimaado in QuickBook code uu kugu xiro, waa inaad call garaysaa iyaga. marka maxaa erirkan see looga gudbaa, erirkan maxaa keeni kara ee sidii ku yimaadaa? mar walba oo aad soo iibsataan softwareka waxaa awood u leedihiin inaad ayagii aad la xiriiri kartaan, inkastoo hadda loogu bedelayba oo loo gataba qaab online ah oo by sanad walba la gato oo online ahaan loo isticmaalayo oo aad u baahnaynba inaad u isticmaasho softwareka adiga. taasina waa taas, laakiin badanaa waxaan isticmaalnaa kan desktopkeena noo ah QuickBookska oo softwareka ku kan online-ka ku xiriirsan weli badanaa kuma badnin, laakiin dad badan oo isticmaala, kambaniyo badan oo isticmaala waa ay jiraan, kambaniyo badan oo isticmaala waa ay jiraan. taas ayaan ku ogaaneynaa. marka cashirkan waa iska introduction ayuu la mid yahay, waana cashirkeeni labaad, halkaasaana kala socon doonaa. marka cashiradeena cashirkan aan qaadanayno waa lesson 2. cashirkan waxaan ku arkaynaa iyadoo aan kusoo duubnay annagoo kasoo gudubnay erarkii uu keenayo marka lagu duubayo, sababta uu keenayo erarkaasi 100 jeer baan la soo weydiiyey, halkaas ayaan kaga jawaabnay. erarka wuxuu ku keenayaa Windows-keega update garay. cashirkeena labaad waa inaan aragnaa performance company-geena. performance company-geena waxaan ka wadaa company-geena qaabkee buu u shaqeeyaa. company-geena ma accrual base ba mise waa cash base? waa cashirkeeni labaad. cashirkeeni saddexaad wuxuu ka bilaabanayaa halkaas iyo income account noo gaara inaan samaysano qasnad noo gaara, halkaasna aan lacag ku shubno, halkaasna aan ka wadno. haddii ay rabtaan inaad aragtaan sida loo dhisay kan oo kale waa arki kartaan sidii u dhisan yahay. waa habkaas wuxuu leeyahay itemskiyo numbers leh sidaa laga rabo in loo dhiso weeye. haddii aad qalab electronic a gadaan, companiga wuxuu noqon karaa company electronic gada, companiga wuxuu noqon karaa company medical daawooyinka gada. kambaniyada ayaga ayaa ku kala duwan. companiga wuxuu noqon karaa company service ah. marka cashiradaasoo badan baa nagu soo socdo, halkaas ka fiirsada. help haddii aan doorto about QuickBook wuxuu tusayaa waa 2021kii soo baxay, halkaasaana kala socon doonaa. sidaa darteed fi amaano lah, wassalaamu calaykum waraxmat